واديني رئيسوارين واديني من شخصية ووزير الجارسين صيحي وحس ودم قرن وخيانة قرن وزيركم أنا محكمة للجية كان بين بكوجل هي وحول ربي هدوه حكتي سواها إنه حل ما نمر هذين وحيابك لو حق مركوا أنا خل نبتقليه مسير سياسة بابي أنت هذيو ورحمة تشيل لي مكوت بركي دولتنا وقت جادي لما هذا تي كلام عن لبسين واحد لما يدعينه هو قام كلا حق labada xafiis ee dalka ugu sareeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa si cad ah u sheegay inaysan waxba ka ogeyn heshiiska wasiirka batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya uu saxiixay heshiiskaasi ayaa waxa uu quseeyaa shidaal soo saaris iyadoo wasiirku hore u sheegay in madaxweynaha arintani uu la ogaa balse xafiiska madaxweynaha arintaasi uu beeniyay haddaba marka ay soo baxday warqadaas heshiiska wasiirku soo bandhigay ayaa bulshadu waxa ay hadal heen badan ka sameeyeen baraha bulshada iyo sidoo kale meelaha dadka ay iskugu yimaadaan iyagoo markaas si weyn uga hadlaya arinta shidaalka haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaynu wax ka weydiinay sida ay u arkaan heshiiskaasi la shaaciyay iyo beeninta labada xafiis ay ku beeniyeen inay wax kala socdaan heshiiskaasi saxad ma jirto nin madaxweynaha waa diiday ra'iisul waa diiday nin shakhsiya oo wasiir xilgaarsiina saxay waxaas waa dambi qaran waa khiyaano qaran wasiirku inuu maxkamad la geeyaa shirkado oo dilaal la bixinaya jiro oo saxiix iyo waxay ku ergoodaan waxay ku antacoodaan raba dhawaacba waa la saxiixayo oo raba inay sii gataan ama dilaal ku raadiyaan ama ku helaan laalu sharay bixiyaan madaxtooyaduna waa iska bariyeeshay ra'iisul waa iska bariyeeshay wasiirku waa in maxkamad la geeyaa la soo xiraa waa khiyaano qaran heshiis wuxuu rasmi noqdaa been waay waxaas aniga dad aqli wax garananahay filla Soomaaliya waxba kama ogeyn ra'iisul waxba kama ogeyn say cadeeyeen dukumeenti heshiis wuxuu sax noqdaa markii xukuumadda la baasmareeyo golaha wasiirada ay baasmareeyaan baarlamaanka uu saxiixo madaxweynaha uu ku soo saxiixo faafinta rasmiga iyo heshiis noqdaa laakiin nin dawladda ma jirto hadda maxaa hadda uu heshiis ugu galo waxa weeye nin dan leh oo raadsanaya gunno raadis ah oo raba inay shirkado wax ka qaata baa saxiixay oo qoray mana saxiixan asaga wuxuu dhiibaalay mid maratay gacan yara safaaradda wax kama ogeyn golaha wasiirada waxba kama ogeyn madaxweynaha ninka sheegay waxba kama ogeyn baarlamaan hadda waxaan saxiixayana ma jiro hadda si ahaanba hatta wasiir ama cid kasta oo heshiis geli karta ma jiro qaran leeyahay ninkaas asaga nin wax doon buu ahaa كبروا الرئاسة كبروا وحاوية والرئاسة ما هي نشر كوسوس لا قال لي صح ما يبغى قالوا وزير أنا سعين كرين مدحوين أنا سعين كرين عد برلمان سعين عمان جرين واحد سعين كرام بجرام شرع من نقول ما يسوى واحد مدحوينه هنا أوجين رئيس الوزراء هنا أوجين قالوا برلمان أوجين قالوا وزير أوجين وحران إلا صحيحة وزير كصحيحين والدبيلي هم بكون شيء هدي الدولة اللي بتشرتو شرع تشرو أنت لا بالله قادوه هدي رئيس الوزراء اللوجا أما مدحوينه اللوجا أنا وهشيس عالمي والله صحيح كرا لكن هدان الدولة دي ما لحد يوصل رئيسي وحنا كأوجي قلب برلمان الله مرينا نيون تشرين أي تهيش الشيء شركات الشيء يا وزير كبدرول كاي تاي تاسع بالدنبية وقام كلا حد كي عن شيء كوسا بيجي ما كل شيء كفى إذا يصير دولة نوا قرتي دولة نوا صوص حتى نحن دول أنت تاكل أنا إيمان تنينا إذا ما وقت جدي يا كفى إذا يصير دولة نعرض إلهي ميلو قصو أرنتاسا كوسا بيج الدن كان دل جل يا دورة شباب ما دعدين دورة شباب لما قبتين دولة دي هراء شقين لهيد برلمان كيف شقين لدت كان لو قرم الله سدا هذا الكوكاية هاي وري كرسي بقى تضرب بقولوا كل لسنة كرسي بقى هالمليون لسنة كرسي بقى شنب بقولوا كل لسنة دولار دت كي يقول على تيرا قاش وبقتيا يا عون عرورتي بيلعب وبقتيا يا تاس أيضا سو هذا القاضي بفت دت ندن كمال محان عنا اللي ما هلا يقدر يقوم محات كمان العقبان ربا وسير هلا يقدر يقوم محات كمان العقبان ربا رئيس الوزراء هلا يقدر يقوم محات كمان العقبان ربا مدحوينه يقدر يقوم محات كمان العقبان رواية ماشي كصحتها ولا العقبان ربا ضد يضل يدين منا شغل وقمالي هل بيفهم تورت إلهي واحد غير قبها نوكينو إلهي بأبارت النقفر كده إلهي بأمبرينا إلهي أبارت النقفر madaxweynuhu hadduu hadda 7 milyan wax ka ogaanayo hal sano ka hor buu warqad soo saaray
oo uu yiri dawladdeedu wax heshiisa ma geli karto ilaa dawlad dambe oo wax saxiixda la helo taasuu hore u yiri kan marka waa falsification weeye in wax la qaataa lagu sahlanaya haddii la isku qabtay waxa la yiraahdaa hangaralaha baalka la yiraahdo hadduu afku wax la waayo fataduusan la waayay haddii lacagtii qabsooma weyday oo haddana qoraal kale iyo amar kale oo dawladeed uu ka daba yimid in meel lagu baxsado la raadinaya qorshuhu waa intaas suuragal ma aha wax ka jirana male wasiirku hallaysa inay shidaal soo saarto oo khayraad ummadda deeqsiiso oo dadka wax u qabato waxaa ka horraysa dalkii Soomaaliya oo ummadiisii ay Soomaalida tahay oo ku kala qoqoban oo qofba meel ku nool yahay in marka hore ayaga saaxa dhab ah oo nabadeed la dhex dhigo horta goorma markaad wax soo saarayso wax samaynayso waxa weeye qof qaarka dambe ka qaawan qaarka hore hadduu ka labisto ceebteedu ka muuqataa dalkan asagu wuxuu u baahan yahay midayn horumar hantidan Soomaaliya wada leh qof ma leh qoysna ma leh markii ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed si cayiman amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo isu socodkeeda iyo daadajinta dawladnimadeeda u gaarto u dhaqaaqdo baa la soo saaraya laakiin haddii qaarka hore iyadoo ka qaawan qaarka dambe ka qaawan qaarka hore laga asturo oo laga dabdaboolo wax inflation iyo dhib aan hayn sii kordhin mayso wasiirkii xalay idaacadda ka hadlay batroolka waa saxiixan haddii saaka la yiraahdo la kaale cidaad ka saxiixday ma keeni karo campaign buu ku galahayaayo wuxuu rabay hadduu waayo xogtiisa waa hayna xildhibaannimu raadinayay iyo waxyaabo kale oo xog markuu waayena khalkhal nabadgelye iyo masiir siyaasadeed baabi'inteed iyo warxumo tashiilnimo ka wataa heshiiska wasiir shaqaalow uu saxiixay oo shidaalku annaga iskale badaha annaga dhulka annaga waa ka buuxaa arrintaas madaxweynaha hadda ka hor dhigreeta ka soo saaray inaan wax heshiis la geli karin ilaa dawlad cusub la helo sidaas baa doorasho loo aaday markii doorashada laga soo noqdo dawlad cusub la dhiso in mawduucaas labaad buu ahaa in loo gudbo in marka wasiirka oo aan dareesanahay inuu deegaan doorashadiisa ay baraa u ahayd xogaa culays halkaa uga yimid intuu aado mataqaana ingiriiska inuu fado dhaliyo xilligan iyo wax macnaha hadal hayn leh horta inuu wasiirku noocaas wax u fakiro horta marka hore waa asagan ku cambaaraynayaa fal u qalmana ma ahayn waxaan kala u mahadcelinayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo laba warqad oo iswaafaqsan xal ka soo saaray oo diidmo ah hadda waqtigeedana ma ahayn wasiirkan waxaan leeyahay walaalow kursiga adigu haddaad kursiga beelbaad iska leh haddaad kursi u xanaaqsan tahay hadda gogol ka dhigo oo beeshaada la macaabilta laakiin ummadda Soomaaliya khayraadkeeda ha ka been sheegin